kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkan idin ka soo diyaarinay horumar ballaaran oo ka socda gudaha magaalada Woodward horumarkaas oo ah markaasi hagaajinta bilicda wadada magaalada bartamaheeda dhexmarta ee gudaha magaalada Woodward oo laga samaynayo markaasi goobo jay ah isla markaana ay iska kaashanayaan bulshooyinka deegaanka iyo waliba shacabka iyo waliba cuqaasha iyo waxgaradka deegaanku si markaasi ay u noqoto magaalada mid bilicdeeda soo jiidata guud ahaanba shacab weynaha ayaa waxa magaalada Woodward gudaheeda ka socda markaasi dayactir ballaaran oo lagu samaynayo wadada shantaraalka ah ee dhexmarta gudaha magaalada Woodward taasoo laga baabiinayo dhulka biyo fadhiisinka ah iyo dhulka baabuurta hakisa isla markaana laga dhigayo goobo siman waa wadada weyn ee dhexmarta gudaha magaalada Woodward muuqaalkan aad arkataan ayaa ah markaasi baabuurta gaadiidka loo yaqaan iskarogooyinka oo markaasi iyaguna ku daabulaya jay ciid iyo dhagax goobaha biyo fadhiisinka ah sidoo kale barnaamijkan waxaad ku arki doontaan bulshooyinka oo iyana dareenkooda ka hadlaya sida ay u arkaan horumarka ballaaran ee ka dilaacay gudaha magaalada Woodward barnaamijka waxaad la socodsiinayaan anigoo Cabdi Ciraah daawasho haboon أما بعد عاد يا عاد وحان ugu faraxsanahay shirkana hadda ka soo qayb galay oo kii ugu horeeyay Woodward aan ka qayb gala oo ah wax cajiib ah hadii la eegana wax yar ah waxa weeyaan ma hadale waxa halka ku arkay wiilkii iyo walaashii iyo hooyadii oo wada shaqeeyay ururka dhalinyaradu wuxuu ka kooban yahay hablo iyo wiilal waa walaalo waxa ku soo kordhay hooyadii oo ay wada shaqeynayaan waxa hadaba yaab la adagu xaqaanu ku hadnaa odayaashii hadaanu nahay adagoo jiitaba daba ordayna waana kan meelaan ku hadno male magaalada maalmihii aan imi yaan meel halkaas u baxay waxaan arkay niman dhalinyaro oo qurux badan oo labisan oo haddana ku daafad guraya markaasaan isiri anigu waxaan daniyay oo isiri wiilashu booskay leeyihiin oo ku daafada ka guranaya walyaan weydiiyo waxaan idhi yaryarku inta ay hadeer ku daafada gurayaan maxay marka hore uga ceshan waaye markaasaa la yidhi waa urur dhalinyaro oo shaqaynaya oo sidaa ugu shaqaynaya aad iyo aad bay ii cajab gelis maalintii dambe iyagoo baabuur wata ayaan iska fuuloo raacay buurtaasay tageensaa maxay dhagax gurayaan wixii oo dhagaxaa bay soo gureen suuqay dhigeen dhulkii biyaha anigu horta markaan arkay sida u socdaan ururka hooyooyinkaba maba oqoona kii dhalinyaradan